doonista maanta ee shacabka SSC waa maamul u gaar ah haddana markaad eegtid 17 xildhibaan oo fadhiya golaha baarlamaanka Puntland madaxweyne ku xigeen Saami Beeled waa caqabad kale oo maamulkaasi halis ku ah dhinaca kale markaad eegtid dastuurka Puntland qodobka 7 waxa uu qeexayaa soohdimaha Puntland Sooliya Sanaag waa kamid iyaduna waa caqabad kale sidee looga badaalan karaa maxaad se kala socotaa hadalka uu ku soo celcelinayo madaxweyne Deni fursadda la siiyay shacabka SSC muxuu yahay maxaan se ka baran karnaa maamulkii Khaatumo ee 2012 dibadda loogu taagay degmada Taleex caqabadihii ku dhacay in aysan maanta ku qabsan maamulkan cusub ee SSC Khaatumo halkaad nagala socotaa waa Gooja Media fadlan warbixintan ku soo dhawow iyadoo faahfaahsan warka si share garee soona follow garee page-keena si aad u hesho wararka ugu dambeeyay waa tahay imikana warbixintii oo faahfaahsan ku soo dhawow doonista iyo rabitaanka dhabta ah ee shacabka SSC maanta waa meel marinta muujinta iyo dhaqaajinta maamulka SSC Khaatumo haddaba maxaa maamulkaasi caqabad ku ah maxaase ka baran karnaa caqabadihii ku dhacay maamulka Khaatumo ee lagu dhisay 2012 degmada Taleex aan dib ugu laabto 1998 gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa ay kamid ahaayeen gobolada lagu dhisay Puntland qodobka 7 ee dastuurka Puntland waxa ku qeexan soohdimaha iyo xuduudaha Puntland Sool Sanaag iyo Cayn waa kamid golayaasha baarlamaanka ee Puntland waxa fadhiya 17 xildhibaan oo saami ahaan matalaya beesha dhulbahante sidoo kale waxa golaha xukuumadda fadhiya madaxweyne ku xigeen golo wasiiro agaasimayaal suuragal miyay tahay inta xubnahaasi fadhiyaan golayaasha kala duwan ee Puntland in maamulka SSC Khaatumo aqoonsi iyo meelmarin looga raadiyo xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya tani waa caqabad hore u dhacday kuna dhacday maamulkii Khaatumo ee lagu dhisay magaalada Taleex 2012 haddaba si caqabadahaasi looga tallaabsado waxa horyaala shacabka SSC laba qodob oo kala ah tala midaysan oo shacabka Sool Sanaag iyo Cayn iyo shacabka Puntland ay isugu yimaadaan isla markaasina ay isla gartaan sidii gobolada Sool Sanaag iyo Cayn looga tirtiri lahaa dastuurka Puntland sidii saamiga beesha dhulbahante ka fadhiya golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadaba iyaga saari lahaa loona siin lahaa fursad siyaasadeed beelaha kale ee Puntland taa bedelkeedana gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ayaguna fursad u helaan sidii ay maamul dhameystiran u noqon lahaayeen haddiise ay saasi dhici weydo waa caqabad kale oo hortaagan maamulka SSC Khaatumo hore ayay tani maamulkii ugu dhacday Khaatumo 2 ee lagu dhisay magaalada Taleex 2012 Puntland waxay ku dooday xilligaasi oo xamar kula dooday in dadka SSC ay golayaasha xukuumadda ee Puntland ka mid yihiin dastuurka Puntlandna ay ku jiraan taasi waxaa sii sahlay golaha dhaqanka SSC oo iyagoo Taleex ku soo dhisay maamul haddana hoosta beel waliba xildhibaankeedii iyo cidii ku matali lahayd Puntland ay ka geysatay waa burburkii iyo fashilkii ku dhacay maamulkii Khaatumo tan waa khatar kale oo ku dhici karta maamulkan haddii aan laga hortagin haddii iyadoo xaaladdu sidaa ay tahay ay doorashada soo socota ee 8 February ay ka qayb noqdaan dadka SSC waa burbur iyo fashil kale oo maamulkan ku habsada qodobka labaad ee u bannaan shacabka SSC ayaa ah in walaalahood Puntland ay si midaysan ugula midoobaan maamulka Puntland isla markaasina loo dhiso Puntland tii hore ka xoog badan kana awood badan